koowaad ee sheekadeenana waxay noogu ekayd naagtii sixroolada ahayd oo ku ciyaaraysa weyfoogii gabadha yarta ay lahayd, sidoo kalena gabadha yartana ay ahayd mid ka daawanaysa daaqada, sidoo kalena ay aad ugu faraxsaneyd arrinkaas. wax yar kadibna waxaa lasoo furay albaabka qolkii ku jirta gabadha yarta ah. gabadha yarteedna markii ay fiirsay waxay aragtay isla naagtii sixroolada ahayd oo albaabka u taagan. gabadha yarta waxa umaysan fahansanin, sidoo kale naagtan wayba ka heshay sida ay loo ciyaarayso. waa ayna rabtay wax la ciyaara gabadha yarta ah oo waxay soo aaday dhankii iyo naagta sixroolada ah. markii gabadha albaabka ka soo baxdana waxaa dib isku soo xiray albaabkii, sidaasna waxaa ku baxday gabadha yareed. subaxdii markii la gaaray ayna soo kaceen waalidiinta gabadha, hooyadii ayaa bilowdinaysa qoysu maadaama gabadheedii ay weysay. aabahana waxa uu ahaa mid la hadlaya saaxiibkiis una sheegaya inuu gabadhiisa la yahay, uuna u malaynaya in la afduubtay. wuxuuna rabay inuu saaxiibkiis u sheego booliiska maadaama iyo asaga agtiisa booliis ka dhoweyn, inaysa soo raacaan isaga iyo booliiska. wiilka saaxiibkiisana wuxuu ku dhahay niyo aan arrinkaas ma aaminsani, mana u malaynayo niman afduubayaal ay waxaas inay jiraan meesha aad joogtiin oo aan aqaanin awgeed. ninka ayaan wuxuu ku yidhi niyo warka ila laabinay warkii cadday. ninka ayaan wuxuu ku yidhi niyo meeshiinaas waxyaabo badan ayaa lagu xantaa, waan ku imaan doonaa si fiican waan u sheekaysan doonaa. kii ayna ku yidhi haye. isagoo warka dhammayn welina sheekaysanayaan ayaa waxaa si kedisa qaybta kore ee guriga ka soo dhacayo bakeeri oo uusan qofna wadin qofnana soo tuurin. ninkii markii uu kor fiiriy waxa uu arkay wax uu aad uga cabsaday. waxa uuna arkay naag wadata dhar cadaan ah, sidoo kalena indha aad u gududan oo taagan mid ka mid a albaabka qolalka. ninkii saaxiibkiisa ahaa ayaa wuxuu yidhi maxaa khaldan? kale wuxuu yidhi waxba ma khaldana, isagoo aad u naxsanaa. wuxuuna is dhahay waxaan waa waxaad adiga iska dhadhaxsiisay oo aad adiga sabiratay. ninkii saaxiibkiisa ahaa oo lagu magacaabay fikram ayaa u yimid. aabihii ayana wuxuu yidhi nihow miyaad walwalsan tahay, maxaa kaa khaldan? waxa ii sheegi rabtani maxay ahaayeen? ninkii ayana wuxuu ku yidhi nihow waxaa khalad badan inaad samaysay ayaan dareemayaa, mana ahayn inaad meeshaan dalxiis iyo waxaas u soo aado. nihow maxaa khaldan ayuu weydiiyey. wuxuuna ku dhahay magaaladan waa magaalo ama tuuladan u dhow xitaa waa tuulo mar hore laga guuray, cid deganna ma jirto sababa jira awgood, waxaana la sheegay inay shayaadiin iyo balaayo ku nool yihiin. aabihii ayaana wuxuu yidhi nihow maxaa jira si fiican wax igu sheeg. ninkii fikram ahaa ayaana wuxuuna bilaabay inuu ka sheekeeyo sheeko. wuxuuna yidhi war tuuladan noo dhow ma garanaysaa? tuuladan waxyaabo badan oo cajiiba ayaa lagu arkay. in waxaa la arkay carruurta la jiito laskala kaxaysto. dadkana waxay sheegaan inay jirtay naag lahayd 2 carruur ah oo magaalada ka ahayd shaqaale amaba dadka shaqshaqeeya, inay isku beddeshay muddo kadib naag sixroolad ah, bilowdana inay qaadato carruurta dadka tuulada degan. sidoo kalena waxaa la sheegaa in carruurta badankoodii laga waayay tuuladan, sidaas darteedna tuuladan la iskagaba kooray, dadka badanaana ay iskagaba tageen. markii ay muddo gabadha yartayd soo raadiyeen soona waayeen ayaa waxay soo horbaakinteen gaarigooda meel uu deganaa nin faalalow ah iyo sidoo kale xaaskiisa iyo gabar yar oo ay ku dhaleen. saddexdoodana waxay ahaayeen kuwa faalkii waxyaabahaas ay hawshoodu tahay. ninkii faalalowgaaya wuxuu weydiiyey maxaad meeshan ka soo doonteen, maxaadna doonaysaan? ninkii fikirmayana wax walba u sheegay. ninkii faalalowga wuxuu bilaabay inuu indhaha isku qabto. wuxuuna ku yidhi qof miyaa jiro oo aad meel uga soo tagtay isagoo keligiis ah? ninkaa wuxuu yidhi haa, xaaskayga ayaan iyadoo keligeed kasoo tagay. waxaana ku tiraahdaa qolka gaal iskuna soo xir. way isfiiriyeen. ninkiin wuxuu bilaabay inuu aad u naxo. ninkan wuxuu ku yidhi waxba hay weydiin aniga ee waa xaaskaaga oo keliya, dhan hadal waxaad noo sheegtaa inay qolka isku soo xirto, xaalad adag ayayna ku jirta iyada. aabihii isagoo aad u naxsanaya waxa uu wacay xaaskiisii balse lagama qaban taleefanka. si walba ayuu u wacay, bannaanka ayuu aaday balse taleefankii lagama qaban. labadoodii waa ay soo carareen waayna soo baxayn. aabbahan wuxuu ahaa mid intaas wacaya iyada balse kamaysan qaban taleefanka. hooyadii waxay ahayd mid iska fadhida qolkeeda jiifka balse taleefankeeda waxa uu yaalay fadhiga amaba qaybta hoose ee guriga. waxay ahayd iyada mid aad u murugsan, sidoo kalena aad iskaga oynaysa. ilaa ugu dambayntii ay maqashay codka gabadheedii yareed. haddii ay dhinaceeda fiirisay ama albaabka ay fiirisay waxayba aragtay gabadheedii yareed oo taagan oona ku heeso hooyo. naagti way aamin weyse waayna yara faraxday. markiibana waxay ku soo carartay dhankii iyo gabadha yarta ah. gabadha yareedna waxay bilowday inay sii socoto oo aysanba u istaagin, ayna aado dhankii iyo kaynta. intaasna waxay ahayd gabadha mid kabala'aan ah, sidoo kalena ku socota kaynta dhexdeeda. hooyada waxay ahayd midaanba ka harin oo intaas waa ay soo daba socotay gabadha yarta ah oo waa ay soo daba raacday maadaama ay ahayd gabadheedii yareyd. hooyadanu ay ahayd mid aad ugu beerjilacday, aadna u jecel gabadheeda yarta ah. meeshii ayay timid geesaha ayay fiirsay, waxba way weysay ilaa ay shanqar amaba qosol ka maqashay geed kamida geedii. hooyadii waa yaabtay wayna naxday, waxayna aamini laadahay codka ay maqlayso inuu yahay cod qof weyn, uusanba ahayn cod carruur ama cod cunug yar. waxayna maqashay qof dhahaya waxaad soo doonatay gabadheeda yarta ah. waxayna aragtay naag ku fadhido geed kamida geedaha, sidoo kalena iskaba raaxaysanaysa, lugaana iska laadlaadinayso. waxayna ahayd naagtima aad u dhadheer leh, sidoo kalena wadata dhar cadcadaana. waxayna ahayd mid bilaa kaba ah amaba kaba aan qabinba. hooyadii ayaa soo dhaqaaqday, waxayna u soo dhaqaaqday dhankii iyo naagta. markii ay soo istaagteen waxay aragtay waxay aad uga naxday. waxay aragtay naag leh weji aad looga cabsanayo, sidoo kalena gabadheedii yareed dhabta ku haysata. waa gabadhii ay dhashay hooyada. waxayna ahayd gabadha korkeeda mid uu ku yaalay dhiig aad u tiro badan.
hooyadii way u adkaysan weysay dhagaha ay qabsatay waxayna bilowday inay iska oyso balse naagtii sixroolada ahayd ma ahayn mid u naxday waxayna markiiba bilowday inay aad u sii carooto waxayna dhulka ku tuurtay wax yar hooyadii waxayba aragtay yaanyuurtii ay guriga ka burin jirtay ay necbayd oo dhiig ku yaallo oo idana dhulka socoto hooyadu way yaabantay waxayna naagtii tiri muujeeda yaanyuurtan waxay ahayd tan keliya oo iga celinaysay gurigeena inaan gudaha u soo galo adiga noolad iga burisa naagtii sixrooladeed waxay gabadha yarta ahayd saaratay geedka waxaana markiiba bilowday inay geedka kasoo boodo hooyadii way yaabaneed mana aysan aqoonin waxa ay samayn doonto naagtan sixroolada ah naagtii sixrooladeed waxay kusoo carartay hooyadii qaybta kale ee sheekada waxaa gurigii soo gaaray aabihii iyo ninkii fikram ahaa waxayna ka raadiyeen meel walba naagtiisii balse waa ay waayeen dhan walba oo guriga ah jikada bannaanka qolalka dhammaantood way ka raadiyeen balse waa ay ka waayeen ninkii fikram ayaa halmar wuxuu yidhi bannaanka muujida wax ayaan marmarayaan u malaynaya ayuu dhahay bannaanka ayay fiiriyeen balse waxba ma joogo aabihii ayaa wuxuu yidhi waniha horuntaa miya ma laga yaabaa in ay keentaan gashay iyada ilaa ay dhammaantood wadma maqleen qaylo kasoo yeeraysa dhankii keenta waa ay naxeen labadoodaba iyagoonba isweydiinaya u yahay qofka qaylinayo ayaa waxay bilaabeen inay u cararaan dhankii iyo keenta weliba si zaa'ida kamaysan fikirin qofka uu yahay codka uu yahay iyo waxyaabahaas dhan xitaa iyagu maysan ogeyn codka meesha uu ka soo yeerayo balse keliya way u soo carareen labadoodina waxay kala mareen laba wado oo mid walba wada ayuu maray ninkii fikram ahaa ayaa wada gooniya soo maray markii uu meesha soo istaagay ayaa waxauu gadaashiisa ka maqlay qosol aad u cabsi badan haddii uu gadaashiisa soo fiiri waxba muusa arkin hal mar ayaana waxaa meesha soo soconaya qof ilaa ugu dambeynta ninkii fikram ahaa lugaha inta laga qabtay dhulka lagu dhuftay wuxuuna dareemay xanuun aad u daran wuxuuna bilaabeen salka ayaa xanuunaya qofka lugaha qabtay yuu yahay isagoo yaabanya wuuna dareensan yahay in meeshan wax uu joogo markiibana waxaa gadaashiisa kasoo baxda naagtii sixroolada ahayd iyadoona ku tiri geeridu kuma habboona qaylada iyo buuqa istaji ninkii naxdinta ayaa kusii ziyaaday wuuna yaabanya waxa dhacaya ayuuna fahmi la'ahay hal mar ayaa naagtii sixroolada ahayd intay hortiisa kasoo baxday ee kusoo booday dhanka kale aabihii ayaa wuxuu maqlay qaylada ninkii saaxiibkiisa ahaa ee fikram wuxuuna u soo cararay dhankii iyo ninkii saaxiibkiisa ahaa codkiisa meesha uu ka maqlayay waa uu socday balse waxba muusan arkin ilaa ugu dambeyntii uu istaagay meel geesaha ayuu firfiiriyey wuxuuna dareemay in lugtiisa uu ku dhacdhacayo dhibco dhiig ah waa uu taabtay wuxuuna xaqiiqsaday waxaan inuu yahay dhiig wuxuuna ogaaday in dhiiggan uu kasoo dhacayo dhanka kore ee geedka haddii uu fiiriyey mise waaba naagtii sixroolada ahayd hal mar ayayna si xooga ugu soo booday waxayna ku tiri waxaad u timid Soomaaliya inaad gabadheeda kaxisdid balse adiga ayaan ku kaxaysanayaa lugtaayay qabati waayna jiidatay waxayna u jiidatay dhankii iyo meeshii ay iyadu la rabtay inay keesato aabihii waa uu suuxay oo isaga miyirka ayuu beelay markiiba oo naagtan sixroolada qof kasta way kusoo boodo waa sixraysa oo miyirkiisa ay doorinaysa oo istaagayo qofkii ka dhacayaaba waxay soo jeeday intaas ay jiidayso ay wado waxay ahayd mid aad u xareysan iyadoo dhahayso qof meeshaan soo galay oo anteenaya ma lahan dhammaan qof walba oo meeshaan soo gala waan dilayaa markii hore daciif ayaan ahaa balse hadda daciif maahi awood ayaan hadda leeyahay aabihii halmar ayuu indhaha soo kala qaaday waxuuna arkay gabadhiisii oo jirkeeda wada dhiig ka muuqdo balse halmar waxaa kusoo booda naagtii balse naagtu maysan ahayn naagtii caadiga sixroolada ahayd ee waxay ahayd naagtiisii oo isbedeshay iskuna bedesha naagta sixroolada waxayna markaasba bilowday inay ku dhegto naagtaas ku dhex jiray ruuxaanta naagtii sixroolada ahayd oo naagta sixroolada ah keligeed meel ma istaagi karto waa inayna qof gashaa waxayna bilowday inay tiraahdo waxaad u timaada inaad kaxistid gabadheeda iska ilow midaas ninkii fikram ahaa wuu yaaban yahay balse wuxuu dareensan yahay in xaaskiisii gudaheeda ama jirkeeda la galay lana isticmaalayo wuxuuna ku yidhi wuxuu ugu wacay magaceedii uu horey u yaqaan wuxuuna ku yidhi dareenkaaga dib u soo celi istaji gabadhan anaga ayaa dhalnay balse naagtu waxay bilowday inay tiraahdo waryaa gabadha aniga ayaa iska leh aniga ayaana dhalay keliya waxaan sameeyey inaan cunto yar xaday si aan carruurteeda uquud ooga dhigo balse dadkii tuulada waxay igu ciqaabeen waxaan qofna lagu ciqaabin waxay carruurteeda ku rideen god aad u dheer aniga waxaan ahaa midaanan awood lahayn sidoo kalena waxba aanan samayn karin indhaha oo keliya ayaan ka fiirsan jiray mar walba maalin maalmaha ka mid a ayaan carruurteeda u imaaday waxaana arkay waxaan aad ooga naxay waxaan arkay carruurteedu aad u gaajaysan waxna aanan u qaban karin aniga waxayna ahaayeen kuwo i dhaca hooyo biyo ayaan ugu baahannahay biyana sii xilligaas anigoo aad u naxsan aad noo murugaysan waxaan u cararay tuuladii waxaan u soo qaaday carruurteedii biyo gabadhaydii ayaan siiyey balse maysan soo kicin markaan wayba dhimatay waan naxay waan ooyey waxaan dhahay hooyo biyo ayaan idiin keenay maxaa idinku dhacay balse maysan soo kicin labadeeda carruur waa ay ciqaabeen carruurteyda iyagoon waxba samaynin aniga ayaa wax sameeyey balse carruurteeda ayay ciqaabeen taasina waxay ahayd qalad aad u weyn oo ay aniga igu sameeyeen waxaa dhahantay inay aniga ciqaabaan intii carruurteeda igu ciqaabi lahaayeen halkaas ayaan igu dambaysa dareen oo dhanba halkaas ayaan aniga xitaa kusoo dhintay markaasad waxay leedahay dadka kale ka fikir ninkaya wuxuu ku yidhi adiga isdaji yuusan shaydaanka kaa tanbadinin adiga haddii carruurtaada aad weysay ma ahan dadka masaakiimiinta ina carruurtooda laysid
qof walba sida aad caruurtaada u jeclayd ayuu u jecel yahay. Markaas waxaa meel geesa ka soo baxay caruurtii ay dhashay naagtaas. Waxayna dhahday gabadha yarta ahayd, hooyo intaan ka badan ma loo baahan inaad dhiig darteen u daadisid. Adiga isdeji, iskana dhaaf waxaan aad wadid, uusan shaydaanka ku qaadin dadka caruurtoodana iska dhaaf oo iska cafi. Ruuxaantii hooyadaydu aad u careysan aan midaas ogolayn, balse caruurteedu war way ka maqli jirtay. Caruurtu waxay ahayn mid sideedoo kale ruuxaan ayada xitaa. 3 maalin uun kadib waxay soo baxeen saddexdoodii iyagoo dib ugu soo laabteen sidoodii caadiga ahaa. waxayna dib ugu soo laabteen dhankii iyo magaalada. iyagoo gaarigooda watanaya waxaa si kadisa bareeka u qabanayay gaariga ninkii waday ee ahaa aabaha xaafadda. wuxuuna dhahay wax ayaan lugta iga qabsaday ayaan u malaynaya isug waan soo fiirinaya. waa usoo degta waa una fiiriyey. hooyadeen waxay ku tiri maxaa khaldan, maxaana meesha ku aragtay. wuxuuna ku hor soo qaadaya yaanyuurtii uu tuurayay. deeda qaybtii koowaad soo daawan yaanyuurtan ma fahmi kartid, qaybtii koowaad soo daabo sad fahantid. gabadheen waxay dhahaysaa aabe yaanyuurta soo qaad, isbitaalka ayaan geenaynaa, waana la caafimaadsiinayaa oo waa la hagaajinayaa. sidii ayuu sameynaya yaanyuurta ayuu soo qaadaya. halkaas ayna sheekadii ku